maantay wasaaradda waxbarashada iyo bahda waxbarashada dhammaanteed waxaa sharaf u ahaa in uu na soo sharfay prime ministerka uu kormeer nagala qayb galay maalintii u dambeysay imtixaanka. aadaan uga mahad celinaynaa. aaday muhiim noo waheed in prime ministerku yimaado maxaa yeelay hadalkiisa inta badan ardada waxaa loo sheegaa inay yihiin madaxdii mustaqbalka. maanta waxaan nasiib u yeelanay inuu tago prime ministerka fasalkii uu 4 sano wax ku dhiganayay arday imtixaan ku gelayso. meesha waxaa ardayda uga muuqatay in haddii fasalkan prime ministerku uu ka soo baxay iyaguna ay noqon karaan prime minister iyo wax ka wanaagsan. arrintii loo sheegi jiray ardada oo ahayd in mar walbaba ay yihiin mustaqbalkii wadanka, maanta in uu si practical ah oo muuqato uu mataqaanaa ardada mithaal u siiyo. runtii waa uga mahad celinaynaa prime ministerka oo runtii mar horena nagu taageeray, naguna mataqaanaa korjeegteeyey imtixaanka ku celintiisii iyo qaadidsiisii iyo diyaar garowgiisii iyo howlaha faraha badan oo la qabtay oo mar walba la socdayna waa uga mahad celinaynaa. waxaan uga mahad celinaynaa inuu maantay muxuu ahaa uu suuro geliyey in uu muxuu ahaa ardadii imtixaanka gelaysay oo hor istaago la qaybsado waxa ay dareemayaan. runtii wax weyn oo lagu farxa ay ahayd. maantay waa maalintii u dambeysay imtixaanka. haddii eebe idmo waxaa loo gudbi doonaa sixitaankiisii. waxaan u rajaynayaa ardada soomaaliyeed meel kastay joogaan iyo waalidiintaba guul ayaan u rajaynayaa.